Muuse Biixi Cabdi waxa uu wareegtay madaxweynaha sumadeedu tahay magacaabid iyo isku beddelid uu ku sameeyay xubno kamid ah golihiisa wasiirada iyo xukuumadda waxaana wareegtada madaxweynuhu u dhignayd madaxweynuhu waxa uu wareegtadiisa ku yidhi waxaan go'aamiyay in laga bilaabo taariikhda maanta aan mas'uuliyiintan u magacaabo xilalkani Cismaan Jaamac Aadan Iimaan wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Deeqa Cabdi Yuusuf Dhidar agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta maalgashiga Faadima Cabdullaahi Cumar Diiriye gudoomiye ku-xigeenka hay'adda qaxoontiga iyo barakacayaasha qaranka sidoo kalena madaxweynuhu waxa uu digreetadiisa ku yidhi taariikhda maanta laga bilaabo waxaan isku bedelay xilalkani Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon wasiirkii hore ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska in laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga laba Saad Cali Shire wasiirkii hore ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga in laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Cabdiqaadir Maxamuud Sheekh Maxamed Dhagaweyne wasiir ku-xigeenkii hore ee waxbarashada iyo sayniska in laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta maaliyadda Maxamed Daahir Axmed Furre wasiir ku-xigeenkii hore ee wasaaradda horumarinta maaliyadda in laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Axmed Abubakar Maxamed Yuusuf agaasimaha guud ee hore ee wasaaradda horumarinta maalgashiga in laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Yuusuf Maxamed Cabdi Raage wasiirkii hore ee wasaaradda horumarinta maaliyadda in laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado xubin ka tirsan gudida tacliinta sare ee qaranka Professor Maxamed Faarax Xareed Qodax agaasimaha guud ee hore ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniskana in laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado xubin ka tirsan gudida tacliinta sare ee qaranka madaxweynuhu markii ugu horeysay digreetadiisana sidoo kalena waxa uu laba xil u magacaabay haweenka Somaliland kuwaas oo cabashooyin dhinaca xilalka bariyihii u dambeeyay sameynayay